في الثغور الحسان تبعث الود تبع حدائي التهاني طوعت بهجة الآلام طيوبا من شدى الياسمين والأرحوان من شدى الياسمين والأرحوان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودياشا قيمها iyo qadarinta inaga mudan oo meel walba ay joogtaan iyo si walba aad inoo daawanaysaan. halkan waa xarunta dhexe ee telefishinka Somali News TV studio-yaha uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaana barnaamijkan uu yahay barnaamij gaar ah oo aan uga dabaaldegayno munaasabadda Ciidul Adha. waxaana idinku talagalnay barnaamijyo aad u fara badan oo aan idinka soo tabin doono xarumaha kala duwan oo TV-ga Somali News ku leeyahay daafaha dunida. barnaamijkan oo ah barnaamij gaar ah oo aan uga dabaaldegayno munaasabadda Ciidul Adha. waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona anigoo ah Ciidulus Maxamuud Iimaan. waxay kala qayb gali doona haddii Allah awoodda leh raali ka noqdo Faaduma Cabdi Cali iyo sidoo kale Warsame Cumar Xasan oo kamid ah qorayaasha da'da yar. martidii waa barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu dabaaldegayno munaasabadda Ciidul Adha. waxaana barnaamijka runtii aan uga eegi doonaa arrimo fara badan oo ay kamid tahay weelinta afkeena hooyo ee Soomaaliga oo runtii iyagu kaalin mug leh ka qaatay maadaama ay yihiin hal doorada ay yaraa sidoo kale buwaagtoodana ay ku qoran tahay afkeena hooyo. waxaana kaga hadli doonaa arrimahaasi aan idiin soo bandhigay daawadayaal haddii Allah awoodda leh raali ka noqdo. marka hore aad baad u mahadsantihiin waa idinka mahadnaqayaa runtii waqtigaad iga ogolaateen inaad igala soo qayb gashaan barnaamijka. xigta soo dhawaad. aad u mahadsantahay. waayahay warsamo isku ma horeyso laakiin Faaduma weeyaan. Faaduma soo dhawow. waxaan rabnaa inaad si kooban horta marka hore hambalyan ku leenahay ciid wanaagsan. ciid wanaagsan. xalwadii waa diyaar iyo wax kasta warsamo sidoo kale. marka si kooban annaga daawadayaashaba buuggaada runtii halkudhigiisu yahay isticmaal awoolaha bal inala wadaag. aad u mahadsantahay Ciidulus iyo bahda Somali News TV. waxaan leeyahay bahda Somali News TV iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ciid wanaagsan. ciida kale Ilaahay aan ugu gaarsiiyo bashbashki barwaaqo iyo Soomaaliya oo nabad ah. marka hore magacaygu waa Faaduma Cabdi Cali. isma tilmaami karo inaan qoraa ahay laakiin kusoo jirta wadada qorayaasha Soomaaliyeed. buuggan isticmaal awoodahaaga waa buuggii ugu horreeyay aan qoro. ka hor waxaan qori jiray maqaalo ilaa dhowr maqaalo oo 7 iyo 8 gaarayo oo aan ku daabici jiray warbixinada ama wargeysyada Soomaalida inteeda badan. kadib markaan arkay inay ugu jirto awoodda qoritaanka ama xirfadaas inuu Ilaahay i siiyay dad badan ay ugu dhaheen dhanka Soomaalida wax kaga dhaadhicin kartid ayaan waxaan gartay inaan wax qori karo garowsadayna inaan dhanka wanaagsan wax ku gudbin karo. waxaan jeclaystay inaan macradka ugu horeeyay lagu soo bandhigo Muqdisho maadaama ka gaadha dadkii soo qaban qaabiyay walaalkeen Maxamed Diini inaan ku soo bandhigo buuggayga ugu horeeyay taas oo Ilaahay ii suurtageliyay. buugga waa buug dhiirigelin ah waxa loo yaqaan motivation waxyaalo noocaas ah. sababta ay ugu dhalisay inaan qorana waxay ahayd kadib markaan arkay dad badan oo Soomaali ah oo ku dhahaaya markaad meelaha istaagtid ama hadashid adigu waad fiican tahay Ilaahay ku jecel ama waqti fiican ama nasiib fiican aad leedahay hal abuur oo kugu jiro waa naga fiican tahay anaga fagaarka hadalka ku fiican tahay iyo waxyaalo noocaas oo kala. waxaan ogaaday in qof walba uu Ilaahay hibis iyo qofna Ilaahay uusan qadin qof walba uu meel ku wanaagsan yahay. marka waxaan ku qoray inuu qof walba awoodihiisa isticmaalo kadibna uu gaari karo halka uu rabo. runtii waxaa wax muhiim tahay in la ogaado ah qofka markuu wax barto jaamacadda uu ka baxo hadduusan helin dhiirigelin ama waxyaalo ku kaabayo ama ku dhiirigelinayo naftiisa inay hore u socoto ama horumar gaarto casharadii iyo waxyaalihii uu soo qaatay ma noqonayaan wax muhiim ah. marka sababahaas ay ugu kalifay inaan buugaagtaas qoro weliba xagga dhiirigelinta aan u badnaado. insha Allah waxaan rajeynayaa inaan sii wado. micnaha kaleeto ama ujeedada ugu weyn aan u qoray buuggana waxay ahayd dadka qaar waxay ku weydiinayaan maxaad ugu qori weysay Ingiriiska iyo luqadaha kaleeto oo Carabiga aan si fiican u aqaano. sababta aan u qoray buugga waxaa ka mid ahayd inaan luqadeena Soomaaliga ku horumariyo sababtoo ah dad badan oo asxaabteyda ama odayaal ha noqdaan ama dhalinyaro waxay aaminsanaayeen in dhalinyarta hadda jirta oo daadooda aan 30 gaarin inaysan qori karin buugaag ku qoran tahay Soomaaliga saxda ah naxwihii dhan kastan ka saxsan aan xataa soo adeegsan karin inay soo qaataan suugaanta Soomaalida. marka taas ay u dhalisay inaan bal soo bandhigo awoodda dhalinyaro badan ay ku dhiirigelinaysa inay sideedoo kale wadadii sii maraan oo halkaas ka sii baqaadaan.
waayahay faaduma aad baad u mahadsantahay runtii baan kaga mahadnaqaynaa sidaa usoo koobtay juhdiga kaaga baxay sidoo kale nuxurka ku jira buugaaga waan kugu soo laabanaynaa sidoo kale waxaa nala joogo runtii martina la warsame runtii kamid ah haldoorada iyagoon runtii buugta qoray warsame adnana kaaga soo dhawoy عيدروس أدنى ما سنتين أديجي فاضمو يو دمان شغالها مبتهية عالمية سوم نيوز هدان شرحات كوبا كبحيو لجانا هنيري مانجرت أرتو waxay ahayd arrin u baahnayd arrin qaran baan oran karaa in wax la qoro qof dhalinyaro Soomaali ah wax qoro waa arrin qaran oo luqadiisii ku qoran dana 25 sano luqadaan erey bixin lagu darin waxbaana laga sameeyay maantana aysan muuqan cid erey bixin ku darayso haba ahaatee haddana manhajkeedii aan lahayn manhaj waxbarasho Soomaaliya oo jirin daa'irtii aysan haysan inaad wax ku qorto oo adiga istirto arrin qaran baan oran karaya dhiganahan maangarad markaan usoo laabto 25 maansaa ku qoran oo aniga ila qayr san hore u sheegayba maasooyin aniga ila qayr ku qoran waa 25 maaso waxay ugu dhaliyay inaan qoro haddaan dho waxay ugu dhaliyaan tirinayaa maanta book Soomaali ku qoran aan qoro aad bay u tiro badanaysaa weliba suugaan Soomaalida waxa la dhahaa waa oral society waa bulsho afeed hadalka ku fiican qoraalka ku fiican laakiin taa waa xansaan malaynay 16 jir 6 book qoray oo Soomaaliya jira marka taa waxaan ma xan noqoto meesha laga saaro qorista marka buugan waxaan u aaneyn karayaa ilaa 3 qodob badan ku soo koobo kow maadaama waxa aan qorayo buugaygu ku qotomay suugaan yihiin in jiilka dambe aan uga tago dhaxal ma guuraan oo maansadan waxaa lahaa ninkii hebel ahaa waxaa ma tilmaamaysa lagu dhaqmayno in bulshada wax ku akhrisa kuna qorta luqadda Soomaaliga aan la wadaago hodanka iyo baaxadda ay leedahay luqadda Soomaaliga in bulshada la wadaago hodanka luqadda Soomaaliga iyo in aan ka qayb qaato dib u soo celinta iyo dayactirka luqadan 25 sano ama xeer bixina laga sameeyay sara ugu qaaday lahayd oo maanta ma jirto dawladda Soomaaliyeed awood u leh in manhajkii la bedelo waxyaalo badan markii anaga isdirno oo luqadii sare u qaaday inta baan oran karayaa sababaha ugu dhaliyay haddaan ku sii socdo waxay sharaxaada bulshadeenu intii aan laga xoroobin guumeystii saar cadaya saamidooda ma aysan ahayn dad wax ku wax qora bulsho ware hadal bay wax isugu tagi jireen nin baa gabay tirin jiray deegaan kale la geyn jiray saasay ku socon jirtay waana taa bulshadu sababtay dadku noo dhaheen waa oral society laakiin xilli hore ay ahayd taa waa laga soo gudbay dawlad baan soo marnay luqadeena baan qoranay waa laga soo gudbay maadaama ay sahay marka dadkaygii dad suugaanta maala ay ahaayeen oo ka ab wax isugu tagi jiray waxay noqotay marka in dhalinyartii maanta suugaanaga la qayray fahmayaan wacyigeeda taabanayso inaan u qoro intaa baan karay waya waa maasan tahay warsame aad baan kaga mahadnaqaynaa runtii aadna qaabka wacan runtii aad inagu soo koobtay sidoo kale su-aasha aan ku weydiinay waayahay bal su-aasha xigta waxaan weydiinayaa Faadumo runtii waan kusoo laabanaya Faadumo runtii ma hawl yar inaad buug runtii qorto oo aad soo saarto runtii intaasoo nuqul ka kooban juhdi dadaal badan bay rabtaa runtii inaad adkaysi muujiso runtii dhiiranaan shakhsiyan hadda Faadumo hawl wacan baa qabatay marka si loo eego runtii inaad adoo qof dumar ah haddana hawshaas aad qabato ka waran feedback bulshada kaga soo laabtay marka buugga aad soo saartay عيدروس aad u mahadsan tahay aniga ka Faadumo ahaan waxaan aaminsanahay waliba qodob buugay ku jirto waxa kamid ah qofka Soomaaliga ah hadii buugiisa ama wuxuu qoro uu horeeyo la dhageysto ama si fiican ay dadku akhristaan oo ay soo celiyaan jawaab celin waxaad ka dareemi kartaa ama qofkaas ay ku dhiirigelin kartaa inuu soo saaro buug labaad haddii aad tusaale ahaan aniga markaan buugga soo qoray soo bandhigay dad badan oo asxaabteeda oo akhristay waliba nin Abuukar Jamhuuri loo ka mid yahay maalintii aan buugga soo daabacay oo arkay wuxuu yiri af Soomaaliga inuu ku jiro ma ogeyn maxaa miyaa kula qoray buugga ii sheega si saaxiibtinimo camal marka waxaad dareemi kartaa qofka markuu feedback u siiyo ama rogaal celin aad heshid in aad ku dhiirato inaad buug labaad soo saarto ay kugu sii dhiiriyaan
mid saddexaad iyo mid afraad inaad soo qortid runtii asxaabtayda iyo dadkii qaatay oo weliba dad aad u waaweyn oo qorayaasha ka mida aaday igu dhiirigeliyeen inaan soo saaro buug labaad kaasaana macnaha caddayn karaysa in buuggayga waxtar lahaayo inuusan waxtar lahayn dadka akhristayaasha indhahoodaa laga dareemi kara anugu ma dhihi karo buuggayga waxtar buu lahaa laakiin dadka akhristay fahmay weliba ereyada sida waxa khaladaadka iga dhacay wax kale ii sheegi kara dadkaasaa igu dhiirigelin kara inaan buug labaad soo saarayay inaan qoraalka halkii ku hadliyo laakiin hadda buuggaaga soo saartay magaciisa waa isticmaal awoodaha magacaas maxaa ku keentay magacaas waxaan ku keenay mar horena waan ka dhawaajiyey mawduuca siduu uu kuu deeqo ayuu buuggan kuu deeqi karaa buugga waxa ku jira waa inuu mawduuca ka turjumaa sababta aan isticmaal awoodahaaga u qoray waxay tahay dad badana buugga waxaa ku kaliftay inay akhristaan markay mawduuca fahmi waayeen sababta aan waa waxaan ugu talagalay ahayd sababta aan ugu talagalay oo saas uga dhigana waxay ahayd in qofka isticmaal awoodahaaga markuu akhriyo udhaho awoodahan la isticmaalay matii xabadda maadaama soomaaliya dagaalo sokoy lagu jiray ma awoodo kaleeto qof u gaaro adiga kaa maqan miyaa qofku isleeyahay marka si uu asbal u ogaado awoodaha noocuu leeyahay dad dhowr oo saaxiibo aan ahaa waxay ugu dhaheen inta badan bal awoodahayga anaan ogaado macnaha si buuggaan u akriyo marka qofka ciwaanka markuu arko wuxuu dareemayaa inay wax ka maqan yihiin awoodaha la sheegaya in la isticmaalana hadduu isaga haystana inuu isticmaalo haddii ay ka maqan yihiin inuu raadiyo baada goobkaas uu galo taasaan ula dan lahaa markaan ku qoray isticmaal awoodaha aad iyo